السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا عاديين أو يشين قدير الرفاقي سويس. أنا قاعد قدير الرفاقي بحاجة سويسرلاند وحان أحدي شن طبنك جنايو لو كن يسده لوطن كلن عاديين كيرني سوشيال ميديا. شاب الحاجة على خير قداميها الرفاقي سويس وكسوكن تركيا. صوفي شابل مقالة روزين محمد أبو جابان مقالة سانغالن عباس حاج فند الأبقاسي أفاين قدير مقالة زورخ حمزة أبو شبانة عاصمة سويسرا بيرن. أنا عادية كمرجسن دلكي أرحندرها إلو جستي ولكن أبو محمد شامرين أبريمو أو سيبرين وتوكي نين كسودا منشي بيا صم حمرويني وأنا مرخاتيال بدن أي جيران كلمة إيه الكرر فقي حمريني كنول يلمان إنت قبتاس حاضر كوهين وأنا أي كسوهلين تيفية الصومالية أين عديين إن walaalkeena xabad lagu dhiftay wuuna isla goobtaas uu ku geeriyooday sababta loo diidan ay ahayd 5,000 shilin Soomaali ah. anagoo qowmiyadda Reer Switzerland ku nool waxaan aad u soo dhaweynaynaa xukunkii maxkamadda ee maanta oo axad ah u dhacay oo in gacan ku dhiglaha sharciga islaamka la marsiinayo oona la dili doono. waxaan la kalsooni buuxa ku qabnaa dowladdeena Soomaaliyeed oo aan hadda ka sugayna maalinta tiirka la geen doono gacan ku dhiglaha khaas. waxaan halkan ugu hambalyeynaya markhaatiyaasha oo sida daacad ay ugu markhaati fureen ayagoo ku jirta alla ka cabsi. waxaana sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo garoonka kubadda cagta Enjeer-Yariso ku dhawaaqay ninkii dad dila in xukunkiisa uu yahay dil. maantana oo axad maxkamadda ay dil ku xukuntay gacan ku dhigle qaasim. waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya oo maanta anaga noo caddaatay inaan eexasho qabiileed aan jirin oo cadaaladda lagu dhaqmayo. wabilaahi tawfiiq. عباس حاج أحمد مع أبقاسي أفيان كرير سويس زورخ سويسرلاند 5 جنايو 2026